waxaan kugu casuumay marxalad xasilooni ah iyo tababarka neefsiga oo loo yaqaano mindfulness. Adigoo ah inta ugu macquulsan sida ugu aamus badan ee suurtagal ah, laf dhabarta toosi adigoo ku fadhiya kursi ama salli. Indhahaaga si tartiib ah u xir ama waa kuu furnaan karaan haddii aad doonto. Ogow, haddii aad ku bilowdo indhahaaga inay kuu xirnaadaan, hadhow waad furan kartaa. U oggolow gacmahaaga inay ku nastaan meel deggan. Dhabtaada saar ama dhinacaaga sida aad jeceshahay. Si tartiib ah u neefso, sidii adigoo calooshaada aaryo ka buuxinayo buufin oo kale. U oggolow inaad neefta u afuufto si tartiib ah. Dareen calooshaada oo u dhamaysa sidii buufin aaryada laga saarayo. U oggolow mowjadaha heerka neefsigaaga inay ku sitaan si dabacsan oo iskeed u socoto, si deggan oo xasilooni ku jirto. Fiiro u yeelo sida markii aad neefta qaadanayso calooshaadu ay kor u aadayso. Fiiro u yeelo sida markii aad neefta afuufayso calooshaadu u dabcayso hoosna ugu soo degayso. Ku celceli neefsiga noocan ah 5 ilaa 10 daqiiqo. Neefsigaaga raac kuna xasili maankaaga meesha aad fadhiso, sida aad u fadhiso iyo waxyaabaha kugu xeeran. Iska iloow waxyaabaha maskaxdaada ku soo dhacaya. Haddii aad fakar gasho ama maskaxdaadu ay baxdo, ku soo celi fakarkaaga meesha aad fadhiso iyo neefta sida aad u raacayso adigoo raali ah.
haddii aad doonto halkan waad ku joojin kartaa. Haddii aad jeclaatay in aad sii wadato tababarka neefsiga, ku celceli neeftaada adigoo raacaya waxyaabihii aan soo sheegnay. La soco sida aad dareento marka aad neefta qaadanayso iyo marka aad soo celinayso.
Waxaad soo gabagabaysay tababarkii neefsiga. Sidee baad dareentay? Waxaad samayn kartaa in aad qorto sida aad dareentay intii aadan bilaabin tababarkan, iyo kabacdi sida ay kuu saameysay iyo waxyaabaha jawigaaga iska beddelay. Tani waxay kuu noqon kartaa in aad hadhow dib u fiiriso xilliyada aad diiqadaysan tahay ama walwal zaa'id ahi ku hayo. Tan waxay ku siinaysaa hididiilo ama rajo ku saabsan in waxaan ay tahay wax laga gudbi karo. Qadar yar oo tababarka neefsiga kabacdi. Waad mahadsantihiin.